caruurta iyo maalku waa quruxda adduunka waa lagu farxaa qof kasta markuu cunugu dhasho uu ku farxaya dhibkii kaama harine cunugi waad korinaysaa umul baad la galaysaa aabbaha laftiisa dhinaca buu umul ka yahay oo dhibkii baa haysta isbitaal buu u qaadayaa habeenkii buu kugu soo jeedayaa waad korinaysaa ilaa uu ka gaaro cunugii waqtigii uu ku fahmi lahaa oo aad wax u sheegi lahayd oo wax bari lahayd cadaalad miyaa marka masama waxaa ku jirtaad u maleynaysaan xikmad cunugii intaasoo dhib ah aad u soo martay markii uu caqliyeystay oo uu soo koro inaad cartoon iyo TV iyo intaad ku tuurtid meel kale aad adigu faraha ka qaadid ma caqli ba tusaalahaas wuxuu la mid yahay nin guri dhistay oo kale oo qurxiyay oo dayn qaatay oo kuraas dhigay oo daahiye ku xiray oo markuu wax walba dhameeyay kuraas wax walba uu dhigay albaabada intuu u ballaqay yiri mukulaalaha iyo eeydu guriga ha ku ciyaareen oo ha dageen saasuu la mid yahay sababta cunugaad intaa soo korinaysay baa TV iyo cartoon iyo school public school kaliya ku fasaxday oo ku sii daysay waana mid ay ku magacaabaan culimadu wa idal maw'udatu su'ilat ayu soo galaya cunuga waa la dilay cunugaas camal waa la dilay wuxuu quraanku noo tilmaamayaa dadka caruurta dhalay inay u qaybsamaan laba qaybood qolo ciyaalkaas ilaahay uga dhigay imtixaan iyo fidno iyo cadow uu uga dhigay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna caruurtiina iyo maalkiina waa fitan waa dhibaato inna min azwaajikum wa awlaadikum caduwan lakum xaasaskiina iyo caruurtiina waxaa ka mida kuwa cadow idin ah baa ka mida cunugaagiyo cadow kuu noqday ka waran oo dhib kugu noqday waad ku rafaadaysaa wuxuu quraanku dhinac kale noo tilmaamayaa dad ciyaalkoodii ilaahay uu uga dhigay ilqabowsi iyo beer qabowsi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلهي عرورتنا وحنا نوغا دغتا القبوس نوغا دغ انكو القبوسنا ولا شك كما جرو قف كستو انغا مid amaanta inuu raadinayo cunug uu ku ilqabowsado shaki mal arintaasi haddaad waaqiceena fiirisan maanta aan ku noolahay waana waxan mawduucan nagu khasbay inaan ka hadalno waalidiinta badankoodu way yaqaanaan say ciyaalka u quudiyaan caana u siiyaan cunto u siiyaan dhar ugu xiraan iskuul ugu diraan u seexiyaan check up iyo caafimaad u mariyaan daawo u siiyaan cadar u mariyaan barfuum u mariyaan way yaqaanaan laakiin badankoodu ma yaqaanaan cunuga caqligiisa si loo koriyo cunuga diintiisa sida loo koriyo cunuga akhlaaqdiisa sida loo koriyo ma yaqaanaan waana arrin xaqiiqo ah arintaasan marka waxaan rabnaa insha Allah inaan ka hadalno waxaa kale ikhwaani cunug wanaagsan in qofka la siiyo laba sabab ay ku timaadaa cunug wanaagsan qofku inuu helo oo ciyaalkiisu u wanaagsanaadaan laba arrimood midkood buu ku helaa mid gifti ah oo ilaahay bixiyo ilaahay wuu bixiyaa sababtoo ilaahay asaga cunuga hibeeya asaga tarbiyeeya cunug wanaagsan qofku uu siin karaa walidaalka waxaad arkaysaan qof iska dayacan oo cunug wanaagsan oo baari ah ilaahay siiyay tan labaadna waxay ku timaadaa tarbiyo cunugii la tarbiyeeyo oo wax la baro oo la barbaariyay ku timaadaa haddii sababtii hore aad weydid waad kasban kartaa walidaalka waxaad arkaysaan nabiyadii ilaahay sidoo ilaahay nooga qiseeyay waxay ku celcelin jireen ilaahay oo ciyaalka noo wanaaji nabiyullaahi ibraahim oo waxaad arkaysaa dhahaya isagoo ku celcelinaya ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد سو كعل علنيا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلهي أنيق يا عرورتي إذا إن صنم يدا عابدنا نقفوجي فيري وحوليه هي إلهي إن عرور أن طلو صنم عابدة أو قالة أو معصية سميس إجا إلالي مركزوها دنو وحوليه هي إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربي وعرورتي دي ميل باندتشي صلاة ويتو كذان سي أي صلاة دوتو كذان إلهي وهطيعن عنقي صلاة بوتو كذا
ووناكسن يهي إلهي هطيعنا أذو حفظي وعلى أركيسا النبي الله زكريا أصدقوا دهية سورة مريم سيكشا كينيسو وحوليه هي أصدقوا دعيستي مرر بدن أو كعل عليي أيوه وحوليه هي وجعله ربي رضيا إلهي عنق قاد إسيسد عنق رالي لقيه هي كدق عنق وناكسن أو بارئة أو أنيق يقحرا أو وركا يقمقلا أو مركا ننت إيسو دعية أو القبوسئة إلهي وإيقدق ومدى المرة اللي بكنتو عيستان وأذاركيسان إن dadka waxa ugu badan ay lacagta u bixinayaan si cunuga loogu duceeyo saasay nabiyada ilaahay ku duceysan jireen hatta uu leeyahay asagoo qaylinaya ilaahay uu leeyahay asagoo oo mixraabka taagan buu wuxuu lahaa ilaahay oo caruur duriyatan tayyibatan ilaahay oo isi ikhwaani ciyaalka wanaagooda markaad leedahay ilaahay oo ciyaal wanaagsan isi cunugu marka uu dhashaba وإن أذوقنا كده داشي ساد عنقا كوكرين لهاي ساكوتربيين لهاي هدي عنق وينادو وأتسكت ضيعضو إنه هذا ماشي أنا نجوجنا عنقي وان كوريني وينادي وان اسكت ضيعني قال أن كوسي دحديني سكول بان كوسي دحديني هذا وحاربنا إنه في عناضو صورة كلمة وما صورة كلمة وهذا الوحاجر قبل يبقى وحوها عربي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا الغف قرد الضوء وحرته والله بدأ قعمات كحرته أو بط كل حتورته أو هذه بيها إسكي إلالي يهقين ما دعي عكرته إن العنق قال يببلي سكول كسي حديثات ترى هذه دين في عنو أو وناكسنو ما دعي عكرته مذكرنا وحولها ومن رعى غنما في أرض مسبعة qofkii ari ku raaca xoolo ku ilaaliya meel waraabe iyo xayawaanaad wax cuna leh wanaama anha tawalla ra'yaha al-asad oo ka seexda cunugii xoolihii qofku uu raacayay libaax iyo waraaba qaadanaya cunugaaga hadaad ka seexatid oo iska hilmaantid waxa qaadanaya gaal iyo waraabe iyo balaayo dhan ba qaadanaysa idan mawduuca hadaan guda gallo انصر لولدك قبل أن يولد عنقاga intuusa dhalanin horta u gargaar sida ugu gargaaraysa عنقاga maalin buu hiila kaaga baahan yahay maalintu hiilada kaaga baahan yahayna waa maalinta aad hooyadii guursanaysid ama aabihii aad guursanaysid عنقاga maalintaas miftaaxa ugu horeeya iyo waxa ugu muhiimsan waa markaad guursanaysid عنقا waalidkii زوجة وناكسن خير وناكسن كدلتي قرآن كي تقانا عنقي تربيين كرتا إنا تقورستي آبو وناكسن أو قرآن كي يقانا أو دينتي بركة عنقي إنا تقورستي مركا نبي صلى الله عليه وسلم مالمها كم ده وحا يمد نين كأت شاغانا يا عنقيس وحولي رسولك إلهي عنقيقا أنيقا إيمائك ومذويحي في ربال كاسو النبي وحكي صلى الله عليه وسلم waxaa dhici karta wiilkaaga in uu u ekaaday oo uu ka soo siibmay xaaskaaga familigeeda macnaheedu waa maxay reerka xataa gabadhu ka dhalatay ama ninka ku qaba ka dhashay cunuga waxay ku yeelanayaan saameyn bay ku yeelanayaan kalar ahaan wuu u ekaanayaa dhaqan ahaan wuu u ekaanayaa dhinac kasta wuu ka shabahayaa cunugu marka inaad cunuga fiirisid intaada guursanin ka hor cunugaad dhali doontid inaad u boos raadisid oo dhahdi qofkan guursanaya waa qofka ciyaalkayga aan raba inay la mid noqdaan inaad dhahdi waxa kale oo sunna ah qofku markuu guursado habeenka ugu horeyso arooska uu yahay inuu ducaysto ducadan waxay anfacdana nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam ducadu ku ducaysanaya waxa kamida xaaska in inta la qabto fooda meeshan timaha ugu horeysa inuu dhaho allahumma inni as'aluka khayraha ilaahay waxaan ku weydiistay khayrkeeda wa khayra ma jabaltaha alayhi iyo khayrka wixii aad gabadhan ku dul abuurtay wixii aad ayada dhex gelisay oo ku abuurtay khayrkeedan ku weydiistay cunugii baa kamida akhlaaqdii baa kamida cilmigii baa kamida dhaqankii baa kamida wax kasta oo ku jira gabadhan khayrkeedan ku weydiistay
وهذا الأدوي وأعوذ بك من شرها شرط هذا كان مغنقلي وشر ما جبلتها عليه يوحي أتكد الأبورتي أو قبلنا نحقلي سي شرط هذا عنق هذا شرطيسا أخلاق هذا شرط هذا دبيعة هذا شرط هذا وحكست أو خصية شرط هذا كان مغنقلي وحديث أبو داود وريه دعادي مركو قفكو أخريو وحاسكيسي ولا دقميو انت اين لبدا قف وحبا سمينين اني هدنا دعيستان والنبي حليه صلى الله عليه وسلم قفكو مركا وحاسكيسا u tagay haduu dhaho bismillaah magaca ilaahay baan ku bilaabay allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana ilaahay oo shaytaanka naga dheere waxaadna siisana shaytaanka ka dheere fiiri waxaadna siinaysid oo caruurta ah waa habeenku u tagay ogow shaydaanka ka dheere nabigu xulay sallallahu alayhi wasallam hadii cunug lagu arzuqo oo cunug ay dhalaan shayaatiinta ilaahay baa ka ilaaliyo oo shaytaan ma u dhawaado waa ducaa aad u weyn waalidiinta badankooduna way xaqiraan way iska yareystaan nin baa la yiri ducadaanu maqlay markaas waxa la yiri xaaskaaga markaa u tagaysid bismillaah dheh suyi horta miir away markaas yaa miir qaba markii aad dhameysteen alxamdulillaah suuye yaa tabar qaba macnaha miir ma hayo markii horena miir ma qabo markii dambana awood ma qabo markaas waxay cunug markii horeba lagu dhalay habaar iyo qaylo iyo dagaal iyo iday iyo kudayn ma hayo maxaa laga sugayaa khayr baa laga sugayaa khayr laga ma sugayo laakiin cunug adkaar lagu dhalay bismillaah lagu dhalay allahumma janna shaytaana ducadii loo akhriyay khayr baa laga sugayaa haddaad ogaatid cunugu inuu calool galay aad ogaatid inaad mar walba asagoo caloosha ku jira u ducaysid inaad u ducaysid ducada ilaahay oo shaytaanka aan ka magan geliyay ilaahay oo shaytaanka aan ka magan geliyay inaad u ducaysid oo mar walba iloobin